maleeshiyaadkii ugu badnaa oo lagu diyaariyay duleedka magaalada Marka mas'uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose xildhibaan baarlamaanka ka tirsan oo ku go'doonsan duleedka magaaladaas iyo barnaamij ka dhigay mas'uuliyiintan oo xilligan ka socda deegaanka Ceel Jaalle ee gobolka Shabeellada Hoose xogii ugu dambeeyay xaalka magaalada Marka isku dhac qarka u saaran ayaa daawaday muuqaalkan kugu soo koobay muuqaalku ku soo gaarsiin shaqaday saaxiibada nuuso berlakan waa Bartama TV haddii aan ku bilaawno wararka naga soo gaaraya deegaanka Ceel Jaalle ku yaala duleedka magaalada Marka waxa lagu soo warramay halkaas daqiiqado ka hor ay ka degtay diyaarad helicopter ah oo ay la socdeen mas'uuliyiin hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose diyaaradda helicopterka ay ka degtay xerada ciidamada AU samay ku leeyihiin deegaanka Ceel Jaalle duleedka magaalada Marka ayaa sidoo kale waxa lagu soo warramayaa mas'uuliyiinta la socotay inuu ka mid yahay xildhibaan Xuseen Cali Xaaji oo ka mid xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxaana xilligan lagu soo warramayaa mas'uuliyiinta inay u go'doonsan yihiin ama ay ku sugan yihiin xerada ciidamada AU samay ku leeyihiin deegaanka Ceel Jaalle duleedka magaalada Marka wararkii ugu dambeeyay halkaas naga soo gaarayay waxay ku warramayaan in socdaalka mas'uuliyiintan ujeedka ugu badan uu yahay inay gaaraan gudaha magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose balse la diidan yahay in gudaha magaaladaas ay galaan deegaanka Ceel Jaalle si gaar ah xerada ciidamada amisom mas'uuliyiinta ay ku sugan yihiin ayaa dhankooda lagu soo warramayo inuu ka socdo barnaamij ay dhigayaan dadka deegaanka hoose ay kaga soo horjeedaan mas'uuliyiinta ku wajahan gudaha magaalada Marka waxaana duleedka Marka lagu diyaariyay maleeshiyaadkii ugu badnaa oo la sheegay inay ka hortagayaan xubnaha mas'uuliyiinta ee ku wajahan magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose xogihii ugu dambeeyay ayna la wadaageen ila xil ka soo ku sugan deegaanka waxay ku warramayaan in xubnaha maleeshiyaadka lagu diyaariyay duleedka deegaanka Ceel Jaalle ay kuwa daacad ah maamul dhawaan laga dhawaaqay magaalada Marka kaasoo lagu magac daray Koonfur Bari Soomaaliya la aaminsan yihiin mas'uuliyiintooda inay ka madax bannaan yihiin maamulka Koonfur Galbeed taas ayaana keentay mas'uuliyiintan maamulka gobolka qayb uu ka yahay ee loo diidan yahay inay galaan magaalada Marka xilligan inay ku sugan yihiin xerada ciidamada AU samay ku leeyihiin deegaanka Ceel Jaalle duleedka magaalada Marka mas'uuliyiinta ayaa lagu soo warramayaa inay xilligan isku dayayaan inay bilaabaan wada hadallo ay la galaan shacabka barnaamij dhigaya iyagoo si gaar u kaashanaya saraakiisha ciidamada AU samay ku sugan xerada ku taala deegaanka Ceel Jaalle duleedka magaalada Marka waxaase lagu soo warramayaa haddii wada hadallada ay noqdaan kuwo guuldareysa ciidamada maleeshiyaadka duleedka Marka ku sugan si gaar ah aagga deegaanka Ceel Jaalle ay ku sugnaadaan mas'uuliyiintan waxa kaliya u furan ay tahay in diyaaradii ay ku tageen xerada ciidamadan ay ku leeyihiin deegaankaasi ay dib kaga soo laabtaan ayna soo tagaan ama ku soo laabtaan halkii koodii hore ama markii hore ay ka kicitimeen marka xilligan waxay u muuqataa mid wajahaysa xaalad qallaase waxaana halkaasi ku sugan maleeshiyaadkii ugu badnaa ee taabacsan maamul dhawaan laga dhawaaqay deegaanka kuwaasoo si adag kaga soo horjeeda mas'uuliyiin uu ka mid yahay xildhibaankan iyo kuwo kaleeto oo dhanka dowladda ka soo gala kuna aftirsada maamulka magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose ama si kale haddii aan u dhanana dhanka kuraasta baarlamaanka ka soo gala magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose xog walba oo ka soo korta xaaladda kacsanaanta ah mas'uuliyiinta ku go'doonsan deegaanka Ceel Jaalle barnaamij dhigayaan dadka shacabka ah iyo maleeshiyaadku ee sanad duleedka Ceel Jaalle ku suganba wixii ku soo kordha wararkan iyo barnaamijyada dambe ayaan daawadayaal idin kula wadaagi doonaa hadduu ay weyne qadaro